xukuumadda talada dalka hayse ee kulmiye ayaa maanta xabsiga dhigtay 4 wariye oo ka howlgala warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliland. xadhigan wariyeyaasha ayaa loo nisbaynayaa kadib markii ay ka qayb galeen mudaharaad salmi ah oo ay soo qaban qaabiyeen mas'uuliyiinta wargeyska madaxa bannaan ee Hubaal, kuwaasoo cabasho xoogan ka muujinayay sida loo maamulay kiiskii loo xidhay weerarkii habeenimada lagu miray xarunta wargeyskaasi Hubaal. mudaharaadkan salmiga ah oo ay horkacayeen mas'uuliyiinta wargeyskaasi Hubaal ayaa sidoo kale waxaa ka soo qayb galay xogayaha ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Soldier Maxamed Rashiid, gudoomiyihii hore ee xuquuqul insaanka Soomaaliland, iyo wariyeyaal ka howlgala warbaahinta madaxa bannaan ee dalka, kuwaasoo saaka ku waabaraystay agagaarka qasriga madaxtooyada Soomaaliland. mudaharaadkan salmiga ah ayay haddaba xukuumadda talada dalka haysa kaga jawaabtay xadhigay kula kacday qaar ka mid ah wariyeyaasha ka howlgala warbaahinta madaxa bannaan. haddaba ka hor intii aan mudaharaadkani bilaabmin ayaa xogayaha ururka Soldier Maxamed Rashiid oo ka hadlay waxa uu sheegay in xukuumadda looga fadhiyo inay cadaaladda hor keento ciddii ka dambeysay falkii goor habeenimo ah lagu weeraray wargeyska Hubaal, isagoo u soo jeediyay xukuumadda inay dib jeelka ugu soo celiso mid ka mid ah eedeysanayaashii kiiskani oo la sheegay in la sii daayay. si kastaba ha ahaatee maaha markii ugu horeysay intii xukuumadda kulmiye talada haysay ay xabsiga ku shubto suxufiyiin madax bannaan, sidoo kalena hatigaad cagajugleyn iyo caburin aan xad lahayn kula kacdo saxaafadda madaxa bannaan, iyadoona muddooyinkii u dambeeyay xukuumaddu dabada ka riixaysay xeer wakiilada loo gudbiyey kaasoo loogu talagalay in indhaha lagaga tuuro dabarna ku xidhaya xorriyatul qowlka iyo madax bannaanida saxaafadda. isku soo wada duubo xadhigani maanta ayaa sidoo kale ka hor imanaya xeerka saxaafadda ee dhaqan galay sanadii 2004 ee ay waqtigaasi talada dalka haysay xukuumaddii udub. Maxamed Yuusuf Bakayle, Somsa TV, Hargeysa.